kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka oo idinkaga imaanaya warbaahinta xogta wararka. qodobada warkeena ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya dawladda Mareykanka oo faragelin xooggan ku sameysay shirka magaalada Garowe iyo madaxda qaar oo cadaadis xooggan la saaray. dawladda Imaaraadka Carabta oo xulafaa cusub u sameysanaysa dagaal la gasho Soomaaliya. dawladda Soomaaliya oo soo bandhigtay shakhsiga dagaalka afka la gali doona siyaasiyiinta dhaliilada dawladda federaalka. Ethiopia oo laga cabsi qabo inuu ka dhaco dagaal lagu hoobto oo Soomaalidu ay hogaaminayso. farmaajo iyo kheyre oo la sheegay in cunaqabatayn ay ku soo rogeen Somaliland iyo xisbiyada mucaaradka ee Somaliland oo ka hadlay. qadar oo malaayiin dollar ugu deeqday madaxweyne farmaajo iyo dawladdiisa. dawladda Jarmalka oo qaaday tilaabo ka dhan ah midnimada Soomaaliya. abaaraadka dibaddana waxaad ku daawan doontaan madaxweynaha waddanka Iiraan Ruuxaani oo ku dhawaaqay in dawladdiisu ay xoojinayso horumarinta barnaamijka nuclear-ka iyo askari u dhashay dalka Britain oo maroodi uu ku dilay dalka Malawi. oo 9 bisha shanaad ee May sanadka 2019 inta daawateen waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn wararkeena ku soo dhawaada wararkaas oo faahfaahsan. أنا كبلون دولة مريكانكا ayaa faragelin xooggan ku sameysay shirka magaalada Garowe iyadoo cadaadis xooggan la saaray qaar ka mid ah madaxda dawlad goboleedyada iyo kuwa dawladda federaalka ee ku sugan magaalada Garowe caasimadda Puntland halkaas oo maalmihii dambe shir uga socday isla markaana ay madaxdu ku sugnaayeen 4 maalin oo xiriir ah loogana hadlayay shir waqti badan qaatay oo looga hadlayo arrimaha Soomaaliya iyo sidii hogaamiyaasha maamul goboleedyada iyo dawladda federaalku ay heshiis dhab ah uga gaari lahaayeen arrimaha la isku hayo. warar ay qortay qaar ka mid ah warbaahinta ayaa waxa ay sheegayaan in madaxda ku shirsan magaalada Garowe oo gaari waayay heshiis kama dambaysa isla markaana shirka dhowr jeer khilaaf uu ka hareeyay oo ka baaqday. halkaas ay ku hayso cadaadis xooggan dawladda Mareykanka oo doonaysa in dhinacyadu ay gaaraan go'aan mid ah. ila laga soo xigtay xafiisyada madaxda maamul goboleedyada ayaa sheegaya in madaxda dawladda federaalka ee ugu horeeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo hogaamiyaasha dawlad goboleedyada ay la kulmayaan cadaadis xooggan oo ku aadan in shirka soconaya 5 maalin ee Garowe loo fadhiyo inuu noqdo mid aan guul dareysan oo qodobo laga soo saaro. safiirka dawladda Mareykanka oo fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto ayaana ah shakhsiga ugu horeeya ee cadaadiskaasi qaybta ka isla markaana doonaya in Soomaalidu ay go'aan gaaraan. Yamamoto ayaa horay waxaa la sheegay in uu madaxda maamul goboleedyada uu gala hadlay sidii dawladda federaalka iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyadu ay kulan iskugu imaan lahaayeen. markii shirku uu maalmo badan qaatay isla markaana dhinacyadu ay u muuqdeen inay ku guul dareysteen in heshiis ay si toos ah u gaaraan ayaa safiirka dawladda Mareykanka waxa faragelin uu ku sameeyay dhinacyada Garowe ku sugan. hogaamiyaasha maamul goboleedyada ayaa la sheegay in loogu hanjabay in cunaqabatayn la saarayo haddii aynan qaadan qodobada qaar ee dhinacyadu ay doonayaan in ay saxiixaan oo ay ka dhigaan warmurtiyad rasmi ah oo ka soo baxa shirka magaalada Garowe. maamul goboleedyada Jubbaland iyo Galmudug iyo Puntland ayaa cadaadiska ugu badan la kulmaya kuwaas oo lagu qasbayo inay aqbalaan qodobada shirka looga hadlayo iyo sidoo kale in ay joojiyaan dhaliilaha badan iyo tabashooyinka loo xal waayay ee shirka ragaadiyay. madaxweyne Axmed Madoobe iyo madaxweyne Xaaf oo dawladda xurgufa ay kala dhaxayso ayaa ah kuwa ugu badan hadba sida wararku ay tilmaamayaan shirka dhinac u leexinaya kuwaas oo sheegay in ilaa dawladda federaalku ay la timaado damaanad muuqata oo ku aadan arrimaha Galmudug in shirku uu socon karin. safiirka Mareykanka ayaa isku dayaya in labada dhinac ay meel dhex iskugu yimaadaan isla markaana shirku uu noqon mid guul dareysta oo lagu kala tago. dawladda federaalka ayaa soo bandhigtay shakhsiga afka kula dagaalami doona siyaasiyiinta mucaaradka ah ee dhaliilada dawladda oo hogaamiyo madaxweyne Farmaajo. ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guleed Qadar ayaa waxa uu sheegay in dawladda federaalku ay heshay shakhsi ku wanaagsan hadalka isla markaana jahayn doona dhinaca warfaafinta ee dawladda federaalka. waxa uu sheegay in Maxamed Cabdi Xayir Maareeyo wasiirka cusub ee wasaaradda warfaafinta
uu noqon doono shakhsiga dowladda federaalka afka ku wajaha. Maareeye oo la wareegay xilka wasiirka warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya ayaa la filayaa inuu noqdo shakhsiga afka ku difaaca xukuumadda uu hogaamiyo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre, waxaana la aaminsan yahay inuu yahay wasiirka awood u leh in uu hadal ku qanciyo warbaahinta iyo sidoo kale siyaasiyiinta mucaaradka, waxaana markaan wixii ka dambeeya uu noqon doonaa shakhsiga kaliya ee u dhaqdhaqaaqa inuu afka ku difaaco marka la joogo golaha shacabka iyo sidoo kale marka laga hadlayo goobaha kale ee madasha ah, isla markaana ay iskugu yimaadaan warbaahinta, siyaasiyiinta ama sidoo kale doodaha la doonayo in looga hadlo arrimaha dowladda federaalka siiba xukuumadda Ra'iisul Wasaare Khayre. Mahdi Guuleed ayaa sheegay mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye uu horay u soo qabtay xilkan, isla markaana la filayo inuu laba jibaaro shaqooyin badan oo halkaa uu ka qabto. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa xulufo u raadsanaysa dagaal ay la gasho Soomaaliya. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa raadinaysa xulufo cusub oo ay noqdo isbahaysiga ka soo horjeesta dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo, isla markaana dhinacyo badan Soomaaliya ka ragaadiya. wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee dalka Imaaraadka Carabta Anwar Maxamed Qarqaash ayaa xafiiskiisa waxaa kulan uu kula qaatay danjiraha dowladda Norway u qaabilsan arrimaha Soomaaliya. waxay labada dhinac ay ka wada hadleen xaaladda Soomaaliya iyo sidii labada dowladood ay iskaashi uga sameyn lahaayeen arrimaha Soomaaliya. dowladda Imaaraadka Carabta oo xurguf xoogan ay kala dhaxayso dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo ayaa u muuqata inay doonayso xulufo cusub oo ay u samaysato sidii loo ragaadin lahaa dowladnimada Soomaaliya, isla markaana meesha looga saari lahaa in Soomaaliya ay u dhaqaaqdo dhinaca horumarka. Imaaraadka Carabta ayaa la aaminsan yahay inuu hoggaanka u hayo khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, waxaana mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda Imaaraadka Carabta ay kulamo kula qaateen waddanka Kenya hogaamiyaasha maamul goboleedyada ka soo horjeeda dowladda si loogu dhiirigeliyo in ay muujiyaan isku duubni ku aadan sidii dowladda ay ula xisaabtami lahaayeen, isla markaana gorgortan ay ugala geli lahaayeen dhinacyada arrimaha siyaasadda dibadda iyo sidoo kale tan arrimaha gudaha iyo dhinacyo badan oo xagga diblomaasiyadda la xiriira. kulankan ay wada qaateen labadan sargaal ee ka kala socda dalalka Norway iyo Imaaraadka Carabta ayaa u muuqanaya in xilligan uu yahay mid aan arrimaha Soomaaliya aan qusaynin, maadaama Soomaaliya ay xilligan ka jirto dowlad, bulshada Soomaaliyeedna waqtigan ay awoodaan in ayagu ay ka tashadaan aayahooda. waxaana lagu sheegay in kulankaasi diiradda lagu saaray arrimaha taageerada amniga, horumarinta howlgallada samafalka bini'aadantinimo iyo sidoo kale arrimo badan oo labada dal ee Imaaraadka Carabta iyo Norway iska kaashadaan. horay labadan dowladood waxaa loo sheegay inay qayb ka ahaayeen diblomaasiyiin badan oo gaaray magaalada Nairobi, halkaasna kulamo badan ka waday oo siyaasiyiin iyo sidoo kale mas'uuliyiin sarsare oo dowladda Farmaajo ka soo horjeeda ay kula kulmeen. wakaaladda wararka ee dalka Imaaraadka Carabta WAM ayaa sheegtay in wasiirka iyo ergaga ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa ka shaqaynta arrimaha waddanka dhaca geeska Afrika ee Soomaaliya. labada dowladoodna ay isku afgarteen in xilligan wixii ka dambeeya Imaaraadka iyo Norway ba ay si dhow uga shaqeeyaan sidii loo xoojin lahaa taageero la siiyo Soomaaliya. halkaasna waxaa ka muuqata in Imaaraadku uu dhinac kala doonayo inuu ka soo galo arrimaha Soomaaliya. Imaaraadka ayaa horay u jaray taageeradii uu siin jiray dowladda federaalka, siiba dhinaca taageero uu siin jiray ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo qaarkood mushaarka iyo tababarka uu qayb ka qaadan jiray. mar haddii dowladda Imaaraadka Carabtu taageerada ay siin jirtay Soomaaliya ay jirtay, xilligan taageerada ay doonayso in Norway ay uga hesho arrimaha Soomaaliya ayaa u muuqata inay tahay xulufo cusub oo Imaaraadku uu doonayo inuu dagaal kula galo dowladda Farmaajo. dowladda Qatar ayaa malaayiin dollar ugu deeqday madaxweyne Farmaajo kadib markii uu madaxweynuhu khilaaf culus uu kala kulmay dhinaca maamul goboleedyada. wakaaladda wararka u faafisa dalka Qatar News Agency ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo amiirka dalka Qatar Tamim bin Hamad Al Thani ay ka wada hadleen
arrimo dhowr ah oo la xiriira labada dowladood. amiirka dalka Qatar ayaa madaxweyne Farmaajo qadka taleefanka kula hadlay xilli uu ku jiray shirka magaalada Garowe ee u dhaxeeyay hogaamiyaasha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka. waxa ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo la xiriira sidii dowladda Qatar ay qayb uga qaadan lahayd taageero xilligan ay hesho dowladda uu hogaamiye madaxweyne Farmaajo. waxay isla soo hadal qaadeen arrimaha shirka ka socda magaalada Garowe, taageero dhaqaale oo dowladda federaalka la siiyo si ay ugu howlgeliso hay'adaha dowladda, sidoo kalena ay meesha uga saarto khilaafaadka ka imaanaya dhinaca hogaamiyaasha maamul goboleedyada. lacagtaas ayaa waxaa la sheegay in ay noqon doonto mid ku baxda dhinacyada qancinta hogaamiyaasha maamul goboleedyada iyo sidoo kale dhinaca arrimaha bini'aadantinimada. hogaamiyaasha maamul goboleedyada ayaa tabanaya in dowladda federaalku ay cunaqabatayn saartay isla markaana aynan helin dhaqaale ay lahaayeen. lacagta dowladda Qatar ay ku yaboohday ayaa wararku waxay tilmaamayaan inay gaarayso 20 milyan. Qatarna ay ugu tala gashay arrimaha Soomaaliya ee xilligan taagan in lagu daboolo. madaxweyne Farmaajo oo lacagtan loogu yaboohay ayaa maalmo badan waxa uu ku sugan yahay magaalada Garowe, halkaas oo shir uga socdo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka. qaar badan oo kamid ah siyaasiyiinta mucaaradka iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada ayaa aaminsan in lacagtaas ay noqon doonto mid mucaaradka lagu kala furfuro, sidoo kalena hogaamiyaasha maamul goboleedyada qaarkood loo sheego in lacag malaayiin la siin doono si ay uga tanaasulaan waxyaabaha xilligan ay isku hayaan dowladda federaalka. inkastoo fila Soomaaliya aynan si rasmi ah uga hadlin lacagahaas iyo halka ay ku bixi doonaan. dowladda Farmaajo ayaa la sheegay inay cunaqabatayn saartay maamulka Somaliland. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka UCID ee Somaliland ayaa madaxweyne Farmaajo waxa uu ku eedeeyay in uu qabyaaladayn iyo sidoo kale qaabab kaleba uu ku maamulay safarada xujayda Soomaaliyeed ay ku tagayaan xajka. injineer Faysal Cali Waraabe ayaa warbaahinta ugu sheegay magaalada Hargeysa in madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayri ay dhibaato ku hayaan ummadda Soomaaliyeed ee xujayda ah. waxa uu sheegay in shirkadaha qaadaya xilligan ay doonayaan in ay isbedel ay ku sameeyaan, kuwaas oo sheegay in qaab qabyaaladeysan lagu kala xulanayo. arrintan ayaa waxa uu sheegay in ay tahay mid lagu dhibaateynayo xujayda Somaliland, kuwaas oo sheegay in shirkadaha qaadaya ee ka shaqeynaya adeegyada xajka ay walwal badan ay ka qabaan maadaama ay ka dhex muuqdaan madaxda ugu sareysa dowladda federaalka Soomaaliya oo Somaliland ay aaminsan tahay inay ka madax bannaan tahay. injineer Waraabe ayaa soo jeediyay in madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayri in xilka laga tuuro, waxaana ugu baaqay baarlamaanka Soomaaliya iyo qaybaha bulshadaba in ay sameeyaan tallaabooyin kaas oo horseedi kara in labada mas'uul ay meesha ka baxaan sida uu yiri. dagaal lagu hoobto Soomaalidu ay hogaaminayso ayaa laga cabsi qabaa inuu ka dilaaco wadanka Itoobiya. dowladda Itoobiya ayaa waxa dhawaan ay shaacisay in dhulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya in laga soo saarayo gaas dabiici ah oo gaaraya 1.6 trilyan cubic feet. war ka soo baxay wasaaradda macdanta iyo shidaalka ayaana lagu sheegay in shidaalkaas uu noqon doono mid ay ka faa'iideysato dowladda federaalka Itoobiya, waxaana sidoo kale ka shaqeyn doona shirkado laga leeyahay wadanka Britain oo daabuli doona shidaalka halkaasi ku jira. dhinaca kale jamhadda ONLF ee ka dagaalanta dhulka Soomaali galbeed ayaa waxa ay ku dhawaaqday in dowladda federaalka Itoobiya tillaabooyinka ay qaadayso ay tahay mid ka dhanna dhulka Soomaali galbeed. waxayna sheegeen in aynan arrintaas aysan jirin wax heshiis ah oo dowladda Itoobiya ay kala galeen. afhayeenka jamhadda ONLF Cadaani Hirmooge ayaa warbaahinta u sheegay in shacabka Soomaaliyeed ee dhulka Soomaali galbeed aysan haba yaraatee wax luga aysan ku lahayn gaaska halka laga daabulayo, sida daraadeed waxa uu ka digay in lagu xadgudbo dhulka Soomaali galbeed. waxaana sheegay in shidaalkan uu ka mid ahaa waxyaabihii hore dowladda Itoobiya iyo ONLF dagaalada xooggan ay ugu dhex mareen. xilligaana waxa uu sheegay haddii arrintaasi ay sii socoto in ay soo noolaan karaan dagaallo ay hormuud u yihiin Soomaalida iyo Oromada oo dhibaatooyin xooggan oo sheegay in lagu hayo dhulkooda. dowladda Jarmalka ayaa qaaday tallaabo ka dhana midnimada Soomaaliya. wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda Jarmalka ayaa kulan la qaatay safiirka Somaliland oo jooga dalka Jarmalka
ambassador Cabdifataax Cusmaan waxayna ka wada hadleen sidii dowladda Jarmalku ay qayb uga qaadan lahayd wadamada ictiraafka doonaya in ay hesho Somaliland. kulanka intuu socday ayaa looga hadlay ahmiyadda in Somaliland ay ka go'do Soomaaliya inteeda kale isla markaana ay noqoto wadan xor ah. wasiirada iyo xildhibaanada dalka Jarmalka ayaana Somaliland mas'uuliyiinta ka socday waxay u ballan qaadeen in dalka Jarmalku uu noqonayo wadamada hormuudka ka ah sidii Somaliland ay Soomaaliya inteeda kale ay uga go'ay lahayd caalamkana ay kala raadin doonaan ictiraaf iyo aqoonsi. dhinaca kale safiirka Somaliland ee dalka Jarmalka ayaa waxa uu sheegay in mas'uuliyiin ka socota dalka Jarmalka looga baahan yahay in ay ka qayb galaan munaasabadda 18 May oo ah markii Somaliland ay ku dhawaaqday go'aan isku taageeda. halka wararkaas daawadayaal idinkaga imaanayaan waa warbaahinta xogta wararka iminkana akhbaaraadka dibadda. askari u dhashay dalka Britain ayaa maroodi ku dilay wadanka Malawi. waaxda difaaca ee dalka Britain ayaa xaqiijisay in askarigaas uu ku dhintay dalka Malawi halkaas oo uu joogay howlgal looga hortagayo dadka la baxa foolka maroodiga. askarigan ayaa waxa uu ka tirsanaa guutada koobaad ee ciidanka Britain ee ku sugan dalka Malawi sida ay xaqiijisay wasaaradda difaaca ee dalkaasi, waxaana ku durduriyay oo ku tuntay maroodi weyn oo xilligaas la sheegay inuu ku sugnaa goob uu ka howlgalayay askarigan u dhashay dalka Britain. ugu dambeyntiina dowladda Iran ayaa dib u bilowday horumarinta barnaamijkeeda nukleerka. madaxweynaha wadanka Iran Xasan Rouhani ayaa ku dhawaaqay in dalkiisu uunan hakin doonin arrimaha la xiriira horumarinta barnaamijka nukleerka oo sheegay inuu yahay midka cadawga uga cabsado wadanka Iran. Rouhani ayaa sheegay in dowladda Iran ay ka baxday heshiiska la gashay Britain, China, Faransiiska, Russia iyo Mareykanka iyo Jarmalka oo ahaa in dowladda Iran ay ka tanaasusho hubkeeda nukleerka taa beddelkeeda caalamku ka qaadayo cunaqabataynta dhaqaale. waxaana arrintan ay cirka isku shareertay oo dib loo soo celiyay horumarinta nukleerka ee wadanka Iran kadib markii Mareykanku uu cunaqabatooyin dheeraad ah ku soo rogay dalkaas isla markaana uu ka baxay heshiiska Iran. Xasan Rouhani ayaa u muuqday inuu xilligan haysto fursadda kama dambaysta ah ee dowladda Iran ay ku xaqiijinayso inay sii ambaqaado arrimaha horumarinta nukleerka. guud ahaan daawadayaal intaa ayay ku dhan yihiin wararkii ugu waaweynaa warbaahinta xogta wararka oo idinkaga imaanaya nabadgelyo.